khilaaf xoog leh ayaa soo kala dhaxgalay sida la sheegayo hoggaanka sare ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. khilaafka waxa uu hoggaanka sare uu salka ku hayaa xilliga la qabanayo iyo sida loo qabanayo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya. waxaana ay markaa khilaafka hoggaanka maamulka ismaamulka oo salka ku haya awoodda maamulka cidda yeelanayso iyo markaasi iyadoona khilaafkaasi uu kala jibiyay maamulka laba garab oo ay kala hogaaminayaan madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar iyo Ahmed Shide oo ah gudoomiyaha xisbiga talada haya. waxaana loogu yeeray sida la sheegayo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya si wada hadal loogu galo khilaafka hoggaankaasi ismaamulka Soomaalida Itoobiya ka dhex ogan. waxaana wada hadalkaasi uu noqday mid marindhil waaya oo fashilmo oo markaasi natiijo la'aan ku dhamaada. iyadoona warar kale xoogaal ah oo ayna helayno TV-ga Universal wararkaasi mid la mid ah oo xaqiijinayo in la sheegayo faragelin Itoobiya maamulkeeda sare ee federaalka uu ku sameyn doono ismaamulkaasi maadaama la sheegayo khilaaf uu soo kala dhaxgalay. sidaasina waxaa ku waramaya ilo wareedyo xogaal ah oo TV-ga Universal arrimahaasi u xaqiijiyay.